يورسن إيسو ورسن إلياس أبو كروح أو كمدي هاي جالية الصوماليات كل دقة مقالة أمستردام ودن كهولن وحن روابلنا نوجد رأي جيسة يصدق وقدر ما شعور تيسا إزبدل كلنا على السياسة ده هي كوسو كرد ودن كصوماليا إلياس من حكي لطها هاي حرير كان عصبي أو بلاد الدولة الصومالية يوم رايكك إن دولة هانس الشرعية نلا أقوم صدق مدة 20 سنة أكدب والله waxay ila tahay fikrad ahaanteeda inay arrintaas wax badan ka bedeli doonto siyaasadda iyo jahwareerka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagnaa maadaama markii hore lagu soo marayay koox ama wadan kale ama dalaalo ama hay'ado lagu soo marayay haddii direct lagu la macaamilayo waxay ila tahay wax badan ay faa'iideynayso waqti badan iyo dhaqaale badan in meeshii ka soo baxayo oo dadka Soomaaliyeed wax loogu qaban karo sida xagga amniga oo kale iyo adiga waxyaabo badan Mareykanka si laga helaa kalmooyin badan ee hadda direct u imaanayaan dawladda Soomaaliyeed ay sumcad u tahay inay la sameeyso heerkaas ay gaarto ay Mareykanka aqoonsi ka heshaan xogaa aniga fikrad ahaanteeda ila tahay sumcad iyo guuleyso weynay tahay waxaa ka mid ah waxyaabihii ay ka hadlaysay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka markii ay soo hadal qaaday in Soomaaliya ay si sharci u aqoonsadeen in hadda kadib ay safaarad ka furanayaan isla markaasna ay si toos ah ula macaamilayaan oo xiriir toos ah ay la yeelanayaan Soomaaliya taasoo macnaheedu ay tahay in dawladda Soomaaliya oo kaliya ay dhageysanayaan Soomaaliyana sida aad la socotay waxa ka jira maamul goboleedyo qaarkood doonaya inay ka go'aan Soomaalida inteeda kale qaarkood doonaya in si gaar ah loola macaamilo waxaa hore u jiray siyaasad Mareykanka uu dejiyo lagula macaamili jiray Soomaaliya oo dual track system aha oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka labadaba la macaamili jiray maxay kula tahay siyaasaddaas gaar ahaan inay ka bedeli doonto isbedelkan cusub ee kusoo kordhay siyaasadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Mareykanka wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay because maxaa yeelay waxay meesha ka saaraysaa hammiga weynaa ee dadkii danaha gaarka watay ee rabeen waddanka Soomaaliya in lagu kala googo lagu kala qoqobo fikradaas oo hami dad badan uga jiray adiga dana siyaasadeed ama dana dhaqaale ay ku rabeen hadii irdaas ay soo xirmayaan haddana ay noqoto isha kaliya ama meesha kaliya ee la xiriiraya dawladda Soomaaliya waa arrin aad iyo aad farxad u leh una wanaagsan midnimada Soomaaliyeed Ilyas adiga qurba joogaata hadda waxa ku dhaqanta magaalada Amsterdam ee waddankan Holland shucuurtaada maxaa dareemaysaa masleedahay isbedelkan cusub madaxweynaha la doortay ra'iisul wasaaraha la doortay golaha baarlamaanka cusub ah imaaday oo ka duwan kuwii hore 20 sano kadib Mareykanka waa awoodda koowaad maanta adduunka ka jirta day aqoonsan dabcan waxay la tahay wadamada kalena inay ku soo xigaan aqoonsan doonaan maxaa go'aan oo isleedahay hadda ay arrintaada ama qorshayaashaada hore ka bedeli kartaa in Soomaaliya maanta sharciyan loo aqoonsado dawladda wallahi waxa ii muuqdaniyo ifafaalo fiican maxaa yeelay 20 sano waxaan ku jirnay markaan madaxa soo qaadno aqli iyo wax karad garanaba waxaan ku soo baraarugnay xabad iyo dagaal iyo wareer marka 20 sano ka bacda qaxiyaan soo qaadna meesha maanta keenay meeshaan oo aragtay meel aan ku dhibaataysanahay waa maalin leeso kaliya aragtay dadkii banaanada jiifo qabowgan dhacay barafka jiro dadka Soomaaliyeed banaanada jiifo qaarkood dib loo celinay waxaan isleeyahay hadii waddankeena dawlad fiican oo muctaraf ah adduunka aqoonsaday ee ka dhalato dhibkii badnaa iyo wareerkii iyo qaxootinimadii iyo dhibaatadii waddanka lagu hayay inay soo yaraan doonto waddankeena horumar iyo wax badan iyo faa'iido badan aan ka heli doono waxna aan ka qaban doono waxna aan qaban doono insha Allah ma laga yaabaa marka isbedelkan cusub inaad adiga uu kugu dhaliyo go'aan inaad dalkii dib ugu laabatid aad iyo aad sida aad la socotaan waxaa hadda ila taagan ama aad u jeedaan waxay la taagan wiil Soomaaliyeed oo bal aan weydiinayna marka hore ra'yigiisa sida uu arkay isbedelka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ku soo kordhay khaasatan marka laga hadlayo xiriirka dhinaca dawladda Soomaaliya ay ka heshay dawladda Mareykanka oo ah in ay u aqoonsatay dawlad sharci ah muddo 20 sano kadib iyadoo dhawaana sida madaxweynaha uu sheegay mar uu la hadlay warbaahinta qaarkeed laga furi doono magaalada Muqdisho safaaradda Mareykanka oo ku lahaa halka dawladda Soomaaliya ay safaarad ka furan doonto dalkaasi Mareykanka walaal marka hore adiga magacaada ku bilaabay magacayga waxaa la yiraahdaa Bashiir Maxamed Qaasim Bashiir ka waran isbedelka siyaasadeed ee Soomaaliya maanta ay taagan tahay markii laga fiiriyo qaasatan wararkii ugu dambeeyay ahaa in dawlad ahaan si sharci ah Mareykanka uu aqoonsaday 20 sano kadib bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad bay macnaha muhiim ugu tahay macnaha waxaan u arkaa in maanta Soomaaliya isbedel weyn uu ka jiro 20 sano aan soo dhaafnay maanta marka la isku fiiriyo Soomaaliya isbedel weyn macnaha haba iska bedelay tusaale ahaan dawladdan federaalka oo ay waddan ka dhalatay annaga nafteena Soomaali ahaan haddaan dhalinyarada waxaan rajo weyn ayaan soo gashay midda kale Mareykanku waa dawladda adduunka ugu awoodda badan marka
waxaan qabay horta Soomaaliya marka hore waa dawlad aan la aqoonsi way lahayd laakiin burbur baa ku dhacay mooyeen dawlad la aqoonsi caalamka jirta ee laakiin haddana haddii uu Mareykanku yiri waan aqoonsanay waxaan arkaa horumar weyn in Soomaaliya sidii hore iska bedelaan caalamka waliba caalamku aan eedayn jirnay inay arrimaha Soomaaliya ay iyaga naftooda faragelin ku hayeen inay maanta wax weyn iska bedelaan marka taasi waxay keenaysaa horumar in wadankii Soomaaliya maanta uu dib caalamka ugu soo laabtay maxay marka kula tahay adiga hadda go'aamadaadii iyo qorshayaashaasi waxaa ku talagashay ka bedelaysa arrinta marka aragtay ilaan waxaad tahay qof qurba jooga oo aan wadankiisa ku dhaqnayn runtii aniga waxay ila tahay waa isbedel weyn ah oo maanta Soomaaliya fursad qaali ay haysato ay maanta wax ku qabsan karto maadaama caalamkii ay diyaar u leeyihiin wax kasta diyaar u leeyihiin kolay afkooda saan ka maqalay macnaha inay wax kasta diyaar u leeyihiin aqoonsiga wax diyaar leeyihiin laakiin waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed sida ay ula filtamaan oo falgaan u qabtaan haddii aan anagu dhab ay naga tahay dawladnimadii inaan wax qabsano maanta fursad ka fiican aan haysano heli karna ma jirta u malinaya ma kula tahay marka hadda in adiga aad u guuri kartid Soomaaliya ilaan qofka markuu qurba joogo waan garan karnaa dhibaatada haysata dalkiisii ma joogo waa qof dalkii kasoo tagay muddo badan kasoo maqnaa marka macquul ma tahay adiga inay kugu dhalisay inaad go'aan qaadato dib ugu laabto aad waa sugi lahay dabcan waxa ila tahay aniga waxaan aaminsanahay qofka ugu horeeya oo ku laabanaya maanta Soomaaliya hadda liidaad maanta Soomaaliya nabad ay ka noqoto Soomaaliya waxaan qofka ugu horeeya ee ku laabanaya wadankiisa oo ka qayb qaadanaya dib u dhiskii iyo horumarkii iyo macnaha wadankiisa ka qayb qaadanaya annaga waxaan khibrad u leeyahay halkan aan joogno waan soo aragnay qurbo wuxuu yahay wadankeeni macnaha iyo wadan qofku wadankiisa sharafta uu leeyahay qofkii qurbo yimaado baa fahmi kara macnaha ku jiro marka annaga waxaan sugi la'anahay Soomaaliya runtii nabadeeda maanta maadaama Soomaaliya isbedel weyn uga dhacay waxaan sugaynaa bal isbedelka kale ee ku xigo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dadka ugu horeeya noqdaan waa tahay marka ugu dambeyn maxaa is leedahay dadka ku daawanaya Soomaaliyeed aad ugu baaqi lahayd si loogu faa'iideysto fursadan qiimaha badan 22 sano kadib Soomaaliya meesha ay taagan tahay waxa lagu qiyaasaa inay tahay meel u baahan shacabka Soomaaliyeed iyaga inay istaageeraan oo ay u istaagaan inay ka faa'iideystaan fursadda ay haystaan maxaad marka ugu Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogto kuwa qurbaha jooga iyo kuwa wadanka jooga dibadda jooga in ay wadankooda dib ugu laabtaan horumarka iyo dib u dhiska iyo nabadda ka dhalan rabta wadanka inay ka qayb qaataan qof walba inuu wadankiisa wax kasta uu ku hori karo uu ka qayb qaato waan aragnay wadanka qiimaha uu leeyahay 20 sano dhib iyo dil iyo dhibaato ku soo jirnay maanta fursad qaali baan haysanaa fursadda waxaan leeyahay inaan ka faa'iideysano khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah lafdhabarka wadanka inay wadanka dib ugu laabtaan dadka aqoonta leh hataa ay dib wadanka dadka u faa'iideeyaan kuwa kale qof walba qofkii dhaqaale wadanka qayb dhiskiisa iyo horumarkiisa uu ka qayb qaataan ugu rajaynayo oo aan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu sanadkiisa maartay oo dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga dadka qaxootiga ku baaba'san inay wadankooda dib ugu noqdaan oo aan ka mid noqono dawlad sharaf leh adduunka ka muuqato oo cizi iyo sharaf iyo aqoonsi leh oo macnaha meel kasta lagu shafayo inaan helaan rajaynayaa waa tahay aad iyo aad u mahadsantahay waxaa halkan ila taagan oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Amsterdam oo aan rabo bal inaan weydiiyo ra'yigiisa sida uu arkay isbedelkaasi siyaasadeed marka hore adigoo magacaada ku bilaabay magacaygu waa Cabdikariim Maxamed Dheere Cabdikariim ka waran sidoo u aragtaa isbedelkan siyaasadeed ee Soomaaliya maanta marxaladda ay taagan tahay marka loo fiiriyo 20 sano ka hor xiriirkii dawladda Mareykanka ee ka jirtay oo hadda ay dib u soo celisay aad u soo dhaweynayna waxaan u arkaa isbedel weyn oo Soomaaliya waxa uu ah guul marka maxay hadda markii macno sameynaa maxay kula tahay muxuu macno sameynaa markii la dhahaa toos uma xiriir diblomaasiyadeed lama lahayn safaarad kama furnaan jirin wadamada Kenya iyo Ethiopia u mari jirnay laakiin maanta waxay ka bilowday dawladda Soomaaliyeed oo sharciyan aan u aragnaa iyadana la macaamilayna de waxa waagi hore dawlad oo rasmi ma ahayn dawlad meel gaar ah jirtay hadda maadaama ay dawlad rasmi ay noqotay waa inay adduunka dhan xiriir ka sameeyaan xiriirkii xalay oo Mareykanka oo Soomaaliya ku aqoonsaday yani albaab oo noo furmo waaye aad u soo dhaweynayna waan faraxsanahay ma kula tahay marka maadaama Mareykanka uu yahay maanta awood weyn oo adduunka ka jirta marka loo fiiriyo dunida inteeda kalena awoodda koowaad la dhihi karo in aqoonsigan uu aqoonsaday albaab u noqon doonto dhammaan dalalka kale caalamka soo aqoonsanayaan nacam horta awood ilaaha iska leh dawladda Mareykanka waa dawlad weyn oo maanta oo adduunka ugu weyn
saas daraadeedna insha allah waxaan rajaynaynaa inuu calaaqaadka adduunka oo dhan yacni ay soomaaliya la yeelato ruushka la yeelato wadamada yurubka adduunka carabta afrika kulli sidii hore ahay jirtay 20 sano ka hor inay sidii hore si fiican kasoo noqotaan ilaahay rajaynaynaa insha allah. maanta markii laga hadlayo marxaladda Soomaaliya waxaa la dhahaa waxay taagan tahay waqti ay u baahan tahay shacabkeeda kaliya inay gartaan ay ka faa'iideystaan ilaan baarlamaan waxaa loo dhisay ka duwan kii hore ra'iisul wasaare madaxweyne aan ku meel gaar ahayn maxay marka adiga qorshayaashaada kula tahay dabcan qorshayaada lahayd wadankan muddo ku nooleed qurba jooga tahay maxay ka bedelaysaa marka waxa soo dhan aragtid qorshayga waxa waaye hadaan ku cadeena waa basacdaa baad wadankan baraabina ku laab go'aana ba gaartay ma sha Allah marka maxay kula tahay had ilaa goormee qorsheynaysaa mas'uuli waxba ka warsugaysaa wallahi waxaan ka warsugaa ma waqti al waqtiga u dhow oo jaanisana baxa insha Allah aad iyo aad u mahadsan waa tahay daawadayaal waxaan intaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena weersan ee toddobaadkan oo aan kaga hadlaynay isbeddelka siyaasadeed ee kusoo kordhay Soomaalida gaar ahaan wadanka Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii dawladda Mareykanka ay si sharci ah u aqoonsatay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya inta aan dib dambe ugu wada kulmi doono barnaamijka la mid ah waa bahda fogaan arag iyo film sheeg Raaga Cali Dheere iyo Cabdullaahi Jaamac oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.